kulan wacan oo wanaagsan daawade halkani waa channelka wararka ee Somali News ku soo dhawaada timinta maalin qodobada ugu waaweyn ee idinku soo gudbin doonana waxa qayb ka Ra'iisul Wasaare Roble oo kulamadii ugu dambeeyay ka wada dalka Imaaraadka Carabta kadib safarkii halkaas uu ku gaaray amniga magaalada Jowhar oo aad loo adkeeyay doorasho ka socota magaaladaas iyo qaar kamid ah kuraastaas oo xiisad ay ka taagan tahay kadib markii shakhsiyaad gooni ah loo xiray damaca Masar oo xilligan doonaysa arrimo ku saabsan ee doorashooyinka Soomaaliya iyo sida ay saameyn ugu yeelan lahayd iyo faahfaahin dheeraad oo ka soo baxaya dilal qorsheysan oo xalay ka kala dhacay qaar kamid ah degmooyinka gobolka Banaadir qodobada iyo qodobo kale ayaan ku faahfaahin doonaa wararkeena maalinimo ee Somali News ee u diyaar garooba daawadayaal mar kale kulan wacan oo wanaagsan waa 31 January 2022 waxaad ku soo dhawaataan qodobadii aad maqasheen iyo kuwa kale oo ayna faahfaahintooda guda galno Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Roble oo safar martiqaada ku tagay dalka isku taga Imaaraadka Carabta ayaa halkaasi ka wada kulamadii ugu dambeeyay oo la qaadanaya madaxda ugu sareysa dalkaasi Ra'iisul Wasaare Roble ayaa kulamo kala duwan la qaatay madaxda dalka qaar kamid ah iyadoona maanta sidoo kale ay arki doonaan amiirada ugu sareeya dalkaasi xafiiska Ra'iisul Wasaaraha oo faahfaahin ku saabsan soo saaray safarka uu Ra'iisul Wasaare dalkaasi uu ku gaaray waxa uu ku qatomo iyo sidoo kale madaxda dawladda Imaaraadka kulamada ay la yeelan doonaan agaasimaha warfaafinta xafiiska Ra'iisul Wasaare Roble ayaa sheegay in uu booqashada Ra'iisul Wasaare Roble dalka Imaaraadka ujeedkiisu ay tahay xoojinta xiriirka u dhaxeeya labada dal ee walaalaha iyo sidii loo soo hormarin lahaa wafdigan uu Ra'iisul Wasaare Roble uu wehlinaya wasiirka amniga Cabdullaahi Maxamed Nuur wasiirka waxbarashada Cabdullaahi Abuukar Xaaji wasiirka wasaaradda dastuurka Saalax Axmed Jaamac wasiir dowlaha xafiiska Ra'iisul Wasaaraha Cabdixakiin Xasan Abshir iyo mas'uuliyiin kale ayaana kulamo kala duwan ilaa xalay ka wada halkaasi safarka Roble ayaa xilligan ku soo aadaya xilli xaalad xasaasi ah ay ka taagan tahay arrimaha doorashooyinka khilaaf xoogan oo kala dhaxeeya madaxweynaha madaxweynaha dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ee xiriirka dawladda Imaaraadka iyo sidoo kale dawladda federaalka ee Soomaaliya oo waayihii dambe adka haatan uu Ra'iisul Wasaare Roble uu dadaal xoogan ugu bixinaya sidii dib loogu soo celin lahaa mas'uuliyiinta Ra'iisul Wasaare Roble ayaa kulan la qaadan doona maanta amiirka wadanka Imaaraadka Carabta Sheikh Mohammed bin Sayid iyo xubno kale oo ka tirsan dawladda wadankaasi iyagoona kala hadli doona xoojinta xiriirka ka dhaxeeya labada dal ee walaalaha iyo sidii loo soo hormarin lahaa wada shaqaynta Imaaraadka iyo Soomaaliya oo waayihii dambe mugdo badan uu ku jiray dawladda Soomaaliya iyo Imaaraadka Carabta waxa xiriir aan lahayn tan iyo 3 sano ee la soo dhaafay marka laga soo tagay 2018 oo xiriirkooda uu xumaaday waxaana haatan muuqato qorshe adag oo Ra'iisul Wasaare Roble uu ku doonayo sidii dib loogu soo celin lahaa xiriirka Soomaaliya iyo Imaaraadka Carabta maadaama Roble hore ugu dhawaajiyay in siyaasadda arrimaha dibadda Soomaaliya ay ku dhisnaan doonto qaab sinan isla markaana saaxiibada Soomaaliya ay noqon doonaan kuwa aan kala sokoyn loona baahan yahay in si wanaagsan loola tacaamulo dalalka Soomaaliya danaynaya xilligaani inkastoo Ra'iisul Wasaare Roble safarkiisa dalka Imaaraadka Carabta uu mugdo badan ku gadaamaya isla markaana la sheegayo inuu kala hadlayo arrimo gooni ah iyo sidoo doorashada ay gacan uga siin lahaayeen dhaqaalana uga heli lahaa haddana waxa xiriirka Soomaaliya iyo sidoo kale Imaaraadka Carabta uu saameyn xoogan ku yeeshay isku socodka dhanka ganacsiga oo Soomaaliya Imaaraadka Ra'iisul Wasaare Roble ayaana qodobo ugu badan yihiin sidii loo wanaajin lahaa xiriirka ganacsiga labada dal hordhigi doona amiirka dalkaasi oo kulan la qaadan doono sidoo kale mas'uuliyiinta safarka Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble ku wehlinaya ayaa kulamo la qaadan doona madaxda kale ee dalkaasi iyagoona kala hadlaya xaaladaha Soomaaliya iyo sidii Imaaraadka ay mar kale qayb uga qaadan lahaayeen xaaladaha cakiran ee abaaraha ugu badan yihiin ee sanad ee ka jira gudaha Soomaaliya markaana magaalada Jowhar ee xarunta maamulka Hirshabelle waxa ka bilaabatay doorashada xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ee golaha shacabka markii ugu horeysay ee deegaan doorashadooda ay tahay maamulka Hirshabelle kursiga ugu horeeyay waxa ku soo baxay xildhibaan Yuusuf Ibrahim Afra Yuusuf Kabaale oo hore ugu fadhiyay kursiga isumadiisa tahay Hob 33 isagoona helay 69 cod halka musharax la tartamayay Maxamed Xuseen Sabriye uu helay 22 cod waxaana xumaatay 6 cod iyadoona ergada ay gaarayeen 97 qof Yuusuf Kabaale oo galaangal badan ku leh maamulka Hirshabelle iyo maamulka gobolka Banaadir isla markaana muddo ku fadhiya kursigaasi ayaa waxa uu ku dhacay in kursigaasi loo xiro loona ogolaaday inuu ergada isagu u keensado muran badan ayaa durbadiiba ka dhalatay doorashada maamulka Hirshabelle maadaama ay madaxweyne Goodlaw dib ugu soo celinayo mas'uuliyiintii hore ugu fadhiyay kuraastaasi maamulka Hirshabelle ayaa hore lagu amaanay doorashada aqalka sare oo hadda u muuqda mid ka qayb yahay boobka doorashada golaha shacabka waxaana la xaqiijiyay in dhammaan xildhibaanada lagu dooran doono Jowhar ay yihiin kuwa kuraastooda ku soo laaban doono kaas oo gacantu ku hayo Cali Goodlaw Xuseen
kursiga ay dooda ka taagantaa waxaa qayb ka ah kursigii ay sanadkani ku tartamayeen xildhibaan Khadiija Maxamed Diiri oo horey ugu fadhisay iyo sidoo kale Baarliin oo iyadana ahayd musharax cusub oo u tartamaysay. Baarliin oo xalay warbaahinta la hadashay ayaa sheegtay in kursiga ay Khadiija Maxamed Diiri ee golaha shacabka ay sumadiisa ay tahay hoob 97 ay leedahay beesha Yaxar ayaa shaacisay in laga reebo tartanka isla markaana loo xiray Khadiija Diiri. Baarliin oo warbaahinta kula hadashay magaalada Muqdisho ayaa sheegtay in guddiga dowlad goboleedka Hiirshabelle ee doorashooyinka ay si toos uga reebeen tartanka kadib markii ay hordhigeen dhowr jidgooyo. Caqabadaha ugu weyn ee sheegtay in guddiga ay ka hordhigeen waxay tahay in lagu xujeeyay inay keensato Edekar cadeynaya inay tahay beesha kursigaas iskale ee Yaxar, taas oo sheegtay inay saameyn ku yeelatay. Waxay sheegtay in markii la weydiiyay Edekarka ay guddiga horgeysay odayaashii dhaqanka ee beesha halka Khadiija Maxamed Diiri ay la timo odayaal kale oo isla beesha ah, halkaasna lagu codeeyay in Baarliin ay u dhalatay beesha Yaxar. Inta badan doorashooyinka hore uga dhacay maamulada dalka iyo magaalada Muqdisho xildhibaanadii hore ugu fadhiyay ee baarlamaankii tobnaad ayaa waayay, waxaana Cali Guudlaawe Xuseen madaxweynaha Hiirshabelle uu ogyahay mid ku soo celin doona mas'uuliyiinta hore u matalaya deegaan doorashada maamulka Hiirshabelle maadaama xildhibaanada maanta Jowhar lagu dooranayo ay dhamaantood u badan yihiin xildhibaanada hore kuraasta ugu fadhiyo oo dib ugu soo noqonayo. Amniga magaalada Jowhar ayaa maanta ka duwan maalmihii hore, waxaana socda howlgallo ballaaran oo ay sameynayaan ciidamada ammaanka AMISOM iyo sidoo kale kuwa ka howlgala caasimadda Hiirshabelle ee isugu jira kuwa Hiirshabelle iyo kuwa dowladda federaalka ee Soomaaliya. 6 kursi ugu horeysay ee xildhibaanada dowladda federaalka ee Soomaaliya ee deegaan doorashada Hiirshabelle ayaana maanta doorashadooda halkaasi ka dhacday. Saraakiisha amniga u qaabilsan ayaa amar ku bixiyay inaysan hub lagu dhex qaadan karin gudaha magaaladaas. Musharaxiinta waxa lagu wargeliyay inay yaraadaan ilaalada badan ay wataan, sidoo kalena waxa la adkeeyay amniga iyo sidoo kale dhaqdhaqaaqa guud ee magaalada Jowhar ee caasimadda maamulkaasi. 12 kursi oo deegaan doorashadooda ay tahay magaalada Jowhar ee caasimadda maamulka Hiirshabelle ayaa 6 kamid ah lagu doortay magaalada Jowhar maantay, waxaana inta kale dhawaan la shaaci doona iyadoona ay ku xigto doorashada magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan oo xiisad xoogan ay ka taagan tahay maadaama Cali Guudlaawe iyo sidoo kale kacdoonka gobolka Hiiraan iyo Filla Soomaaliya halkaasi ay loolan adag ugu jiraan iyo mucaaradkaba iyo xukuumadda ra'iisul wasaare Roble. Waxaa Hiirshabelle oo horey uga kamid ahaa maamuladii ugu dambeeyay ee bilaaba doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka dowladda federaalka ee Soomaaliya, waxaana durbadiiba soo baxday qayladaan ah in Cali Guudlaawe si lamid ah madaxda maamul goboleedyada kale u xiray shakhsiyaad gooni ah oo la doonaya kuraasta xildhibaanada golaha shacabka ee ka imaanaya deegaanada maamulkaasi. Waxa faahfaahin dheeraad ah laga helaya dilal qorsheysan oo xalay ka kala dhacay qaar ka mid ah degmooyinka gobolka Banaadir, iyadoona amni darrada Muqdisho maalmihii dambe ay soo kordhayso. Xogo dheeraad ah ayaa laga helaya dilal qorsheysan oo xalay siyaabo kala duwan uga dhacay qaybo kamid ah magaalada Muqdisho ee caasimadda gaar ahaan degmooyinka Hodan iyo Dharkiinle ee gobolka Banaadir. Dilka koobaad ayaa loo geystay askari ka tirsanaa ciidanka dowladda Soomaaliya gaar ahaan kuwa Gorgor oo ka dhacay xaafadda Saybiyan ee degmada Hodan, waxaana toogashadaas fuliyay rag hubeysan oo biskoolada watay oo weerar gaadma ah ku soo qaaday askariga xilli uu ku sii jeeday hoygiisa oo ku yaal halkaasi. Wararka ayaa sheegay in askariga xilliga la dilay uu ka soo baxay xerada ciidamada Gorgor ee Tarabuunka isla markaana uu ku socdo gurigiisa oo ku yaala Saybiyaano. Ragga dilka fuliya ayaa lagu soo waramayay inay goobta isaga baxsadeen kadib markii dhacdadaasi, waxaana goor dambe goobta gaaray ciidamo ka tirsan kuwa ee dowladda Soomaaliya ammaanka. Sidoo kale dilka labaad ayaa waxa geystay kooxo burcad ah oo ka dhacay xaafadda Xoosh ee ka tirsan degmada Dharkiinle ee gobolka Banaadir, waxaana loo geystay wiil dhalinyaro oo lagu magacaabi jiray Khaalid Cabdiraxmaan Macalin Cali siday noo xaqiijiyeen dadka deegaanka. Burcadda oo telefoonku wata marxuumka ka qaata ayaa la sheegay inay dilkiisa u adeegsadeen tuuray, waxaana isla markiiba halkaasi ay ka carareen. Ma jirto weli wax hadal oo ka soo baxay saraakiisha laamaha ammaanka ee ku aadan dilalka xalay ka kala dhacay gudaha magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Amni darrada Muqdisho ayaa sii baahaysa maalmihii ugu dambeysay, waxaana kordhay weerarada qaraxyada iyo dilalka qorsheysan iyo sidoo kale dhaca xilliyada habeenkii ee caasimadda ka socdo. Waxaa loo sababeynaya doorashooyinka dalka iyo arrimaha isdiidan iyo xilligaani iyo khilaafka wasaaradda amniga iyo maamulka gobolka Banaadir oo waayihii dambeba sii kordhayo, taas oo fursado badan ay u heleen kooxaha ka soo horjeeda dowladda iyo sidoo kale burcadda dadka dhacda habeenkii intaba, kuwaas oo dadka shacabka iyo ciidamada dowladaba siyaabo kala duwan lagu dilayo maalmihii dambe magaalada Muqdisho. Inkastoo dalka haatan ay doorasho ka socoto, haddana waxaa socda dadaalo looga hortagayo falalka amni darro. Ma jirto haatan qorshe ay dejiyeen maamulka gobolka Banaadir iyo sidoo kaleba dowladda federaalka ee Soomaaliya ee ku aadan sidii wax looga qaban lahaa dhibaatooyinka soo noqnoqday ee magaalada Muqdisho, waxaana mas'uuliyiinta waayihii dambeba kororta weerarada lala beegsanayo kuwa oo qaraxyo iyo sidoo kale kuwa dil toogasho ah isugu jiray.
inta ayaan ku soo gabagabeynaa barnaamij wareedka aad kala socoteen channelka wararka ee Somali News mid lamida qiyaar inta kulmi doona nabadgelyo.